بسم الله الرحمن الرحيم سؤاشان waxay tahay qofku isagoo safar ku jira ma soomi karaa jawaabteedu waa ha sidaasna waxa cadeynaya xadiis ay wariyeen Bukhari iyo Muslim waxaana qofka u banaan inuu soomo isagoo safar ku jira waayo rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa su'aashaas weydiiyay asxaabi kamid asxaabta oo magaciisa la yiraahdo Hamza bin Umar waxaanu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yiri hadii aad rabto soon hadii aad rabtana iska afur laakiin hadii uu soonku qofka dhibaato uu ku keenayo qofku soonka ku dhibaatoonayo waxa u haboon oo u fadli badan inuu iska afuro waa ruqsad Allah subhanahu wa ta'ala uu bixiyay mana jirto masaafo ama xad gooni ah oo safarka lagu gaar yeelay oo qofka ay u banaanaanayso markuu masaafadaas u safraayo inuu afuro qof kasta oo safraya ama lug ha ku socdo ama doon ha raaco ama gaadiid ha raaco ama diyaarad ha raaco waxa ruqsad loo siiyay inuu iska afuro waxaanu bilaabayaa mar alla markuu isku diyaariyo inuu safro hadii duhur uu safarka bilaabayo hadii ay subax tahay iyo hadii ay casar tahay intuba waa isku mid qofku marka uu safarkii u diyaar garoobay oo u dhaqaaqayo ayaa uu iska afuri karaa oo uu wax iska cuni karaa اللهم صل على محمد سيدا حديث صحيحة كسوغان با waxa kamid ah xadiiska marka uu warinayo Maxamed bin Ka'ab wuxuu ka soo wariyay Anas bin Malik radiyallahu anhu isagoo Maxamed wuxuu yiri waxaan u yimid buu yiri Anas bin Malik radiyallahu anhu iyadoo ay Ramadaan lagu guda jiro isagoo raba inuu safro oo gaadiidkiisi u raran yahay isaguna xidhay dharkii uu ku safri lahaa markaas ayuu u yeedhay buu yiri ama uu dalbaday raashin Anas bin Malik baa dalbanaya kadibna raashinkii buu cunay markaas ayaan ku yiri Anas oo sidan ma sunnaa markaas uu yiri ha waa sunnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam kadibna waxa uu fuulay gaadiidkiisii dabadii uu raacay buu fuulay hadii qofka musaafirka ah afuray oo gurigiisa ku soo noqdo intaanu gabal ku dhicin isagoo afuran maalinta inta ka dhiman uska afurnaanaya waxa uu iska cuni karaa oo iska cabeeyaa oo waajibku ma ahan inuu ka joogo cuntada iyo cabitaanka iyo waxa la mid ah inta maalinta ka dhiman mana jirto wax daliil ah oo sida ku waajibinaya oo macnaha hadii qofku uu safarkii ka soo laabto intii ka dhineed yani soon cid lahays ma jiro daliil oranaya ma jiro وانا رخصة الله سبحانه وتعالى إن سيي وحنا كجرتا رخصة الله سبحانه وتعالى إن سيي فرصة هي حكمة هذا قيمة بدن هي كجرتا والنبي عليه الصلاة والسلام حديث أياه وحو كل شيء سفر إنه هي قطعة من النار ومن قبل يرى كمذا نارتا ومعنى هذا تهاي سفر إنه مركز توي هي واحد بدن مركز qofku isagoo safar ah hadii soomku uu dhibayo ama uu dhibaatoonayo uu iska afuraya wana u banaan tahay hadii isan dib ku haynin oo isagu saas jeclaysto sida dadka si diyaaradaha ku safraya oo kale waa ay soomi karaan marka qofkay ku xiran tahay isagu sida uu yeelayo go'aanka isaga qaadanayo qofku laakiin qof kasta oo safraya ruqsadaas Allah subhanahu wa ta'ala waa ina siiyay وانا حكمت وين رنتي حديث كان أنس لقى صورنا أيوه وحوريه مركا ترمذي درجتي سنة وصحيح أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يان إلا ونسلق النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت وخميس عاونا وجمعه إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد